waa uu cararay, waa uu cararsiiyey fardihii ayuu xoog u kaxeeyey, ayagiina waa ay carareen. Cirfiidkiina waxa uu rabaa inuu cuno dadkan maadaama uu baahan yahay, isagiina waa usoo daba cararay, waa usoo daba buubay, waa uu kasoo daba cararay, isagiina waa uu ku soo dhowaaday, ayagiina waa ay kasii cararayeen. Wiilkan yar waxa uu ku qasban yahay inuu badbaadiyo waalidiintiis maadaama ay ayaga ka fikiri jireen. Isagii fardihii ayuu kaxaynayaa, cirfiidkiina waa uu soo daba duulayaa. Kadib wiilkii waxa uu istaajiyey fardihii, waxa uuna keenay caqli oo uu ku yidhi, cirfiidow, aniga inaad cunto haddii aad rabtid waa inaan tartan aan galnaa, aan su-aal isweydiinaa, kabacdi markaad iga guulaysato waad i cunaysaa, haddii aan kaa guulaystana waan kaa badbaadaya. Markaas ayuu ku yidhi, adiga waxaa tahay doqon yar oo caqli lahayn, adigoo noocaana ma aniga sidaa ii oran kara. Waxa uu ku yidhi, su-aashaa doonto isoo weydii, haddii aan kaaga jawaabo waan kaa guulaystay, waan ku cunaya, ee diyaar noqo. Wiil yahow gaaban oo caqligiisu intaa uusan dhammayn. Wiilkii ayaa weydiiyey, waxaad ii sheegtaa haddii adiga uu kusoo bursan lahaa cirfiid kaa weyn oo kusoo daba cararo oo waalidiintaadana aawadid, maxaad samayn lahayd? Cirfiidka ayaa la weydiinaya. Markaas ayuu yidhi, cirfiidka awooddiisa oo dhan waxay ku jirtaa geeska yar ee madaxa uga dhagan. Geeskaas haddii aan ka jibiyo waxa uu noqonayaa daciif, waana uu dhimanayaa, aniga ayaan ka awood badan. Waxay u muuqdaan dad awood badan balse waa daciifiin oo xoog iyo tabar dhan ma lahan. Awooddooda iyo duulimaadkooda dhan waxa uu ku jiraa geeskaas ayaan ka jari lahaa. Wiilkii ayaa yidhi, okay waad ka jawaabtay, okay ayaa tahay. Cirfiidkii ayaa yidhi asigane, waan kaa guulaystay, waxaa tahay doqon xun, waana kuu sheegay. Wiilkii ayaa yidhi, waa runtaa, waa iga guulaysatay, laakiin adigoo iga guulaystay ayaan haddana kaa guulaystay. Maxaa yeelay doqonnimadaada waxaad ii sheegtay meel aan kaa dilo. Doqon inaad tahayne taa ayaa ii caddaynaysa. Wiilkii waa uu booday, waxa uu koray gaarigii, waxa uu nala soo baxay seeftiisii. Kadib geeskii ayuu ka gooyey cirfiidkii, seeftii ayuu kalmar kow kaga siiyey. Cirfiidkii waa uu qayliyey, inta uu qaylin karay ayuu qayliyey. Kadib cirfiidkii waa uu baaba'ay, waa uu dhintay. Wiilkii waalidiintiis ayaa soo kaceen oo yiraahdeen, alla wiilkaygii maxaad sameeyday? Ninkii ma dish? Aaway, intuu galay? Ninkaas ayuu ku yidhi, waan dilay. Ninka wax ka caqli badiyey waxa uu ahaa doqon aan awood lahayn. Sheekadii ayuu uga soo sheekeeyey wuxuu usoo sheekeeyey qaabkii uu soo cararay, uga soo baxsaday, iyo qaabkuu u dilay, iyo qaabkuu u dhintay, iyo doqonnimadiisii. Wiilkii aabihiis ayaa ku farxay iyo hooyadiisba waxa uu sameeyey geesinimadiisa. Ayay ku yiraahdeen, wiilkaygii waxaa tahay nin geesi ah, maanta laga bilaabana waxaan kuu qirsanahay inaad tahay geesiga xaafadda maadaama aad dishay cirfiidkii laayay dadkii badnaa